waxaa asal lahaa marxuubiintaas oo maanta si kas aan u dilin oo si kama ah wax walba iga dhaceen inaa idii dhibaato u geystay la xaltan ama maxkamadda qoosana maxamed cabdi maxamuud waxa uu ku doodayaa inuusan ku talagelin dilka marxuumiinta kala ah laba xidigle Ikraan Cumar Axmed iyo Farxiyo Xuseen Abuukar horta meesha waa la joogaa buuxay qori aan sitaa hal xabad ka fakatay baan gabdhaha ku dhaceen dilkaasi ayaa dhacay December 11keedii 2022 wuxuuna ka dhacay goob ka soo horjeeda xarunta degmada Cabdilcasiis xilli dadweyne tabaalaysan deeq raashin ah loo qaybinayay waxaa si xanuun kala ahayd in labada hablood ay lahaayeen oo 9 bil kala ah waxaana wiilasha lagu qalay joogeen ifka daqiiqada kooban xilliga dhalmada joogay waxaa lagu sameeyay qaliin waxaa dhacday marxuumad Ikraan Cumar Axmed in ay geeriyooto kadibna la qaliin lagu sameeyay kadib markii la ogaaday in cunugeedii uu fiyow yahay cunugii ayaa la soo qalay waa la soo bixiyay balse wuu gadaal ayuu ka geeriyooday marxuum Cabdinaasir Carab Yuusuf oo Ikraan dhashay sidoo kale marxuumad Farxiyo Xuseen Abuukar oo eedeysanahan uu xabadii ku dhuftay waxaa lagu sameeyay qaliin cunugeedii oo 8 bilood jiro ayaa qaliin lagu sameeyay banaanka loo soo bixiyay waxaa la geliyay dhalo 2 maalmood kadib ayuu geeriyooday hooyadiina waxay geeriyootay 3 maalmood kadib maragada ay dhageysatay maxkamadda ee isugu jira ehelka iyo goobjoogayaal kale ayaa cadeeyay in marxuumad Ikraan oo ahayd sargaal in askariga nisa duufaan ka tirsan ay kula talisay in dadweynaha uusan naxdin gelin laakiin iyadii ayuuba nolosha u qoonsaday waxaana xabadihii maray ay dileen Farxiyo qorga dadku qabanaa subaxdii dhan dadku ku qabanaa walaaba in dilayaa ku yiri xabad waa ku dhacay subaxdii dhan dadka saasoo dhahay xabad waa ku qabanayay ninkan gafuurka duubanaha imaaday dadku ku qeeqeelshay dadka waxay dhaadaha ku qaylin si degan ula hadal waa ka noqoyay dadkay u noqotay waxay dhaday idinka fariisiyaan leedin dilin oo leedin dhibaateyn sidii ay dhahayso aan xaggan fadhiyo sidii ay dhahayso gabadhii cirkaas inta aad dhulka ku soo dhacday arka ka bacda xabada dhacday hadday dhacday anay meel fog jir gaariga aadanay waa soo wareegtay meesha loo muuqa lagu dhigay oo yaalo dumara oo la qeylinayo maaday hadaa imaado wariyaa dilay war ninkana dilay walaal soo wadaayay wagarat Axmed Cabdalla ku xigeenka xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda weydiistay ciqaab lagaga baaqsan karo dilka muwaadiniinta iyo suurad xumeynta naftood hurayaasha qaranka ninka ku sameynaya taagtaaga ee qoriga dadka ku qabanaya ee ku coolcoolinaya markii la hadlana si bareer rasaasta ugu furaya ma istaahilo inuu ka sii mid ahaado ciidamada qalabka sida darteed mudane gudoomiye ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa wuxuu ku sheegay in qofkii qof kale si bareera u dilo in loo dilo sidoo kale ilaahay wuxuu quraankiisa ku sheegay in qisaasta lagu sameynayo gacan ku dhiiglayaasha ay nolol ugu jirto dadweynaha sidaa darteed mudane gudoomiye waxaan maxkamadda sharafta leh si xushmad looga codsanaynaa bacdama maxkamadda aan hor keenay marqaatiyaal goobjoog ka ahaa dhacdada markay dhaceysay bacdama maxkamadda aan hor keenay cadeymo ku filan oo eedeysanahan ugu cadeynaya in uu dilkan si bareera oo ku talagal u geystay waliba 4 qofood uu si naxariis daraa u dilay waxaan maxkamadda si xushmad looga codsanayaa in eedeysane Dablanisa Maxamed Cabdi Maxamuud ay maxkamadda ku xukunto dil toogasho ah isla markaana maxkamadda ay sida ugu dhaqsiyaha badan uu qisaasto 4 qofood oo uu nafta dhaafiyay abukaata uu doodaya Maxamed Cabdi Maxamuud ayaa isna maxkamadda ka codsaday in loo tixgeliyo eedeysanaha sheegashadiisa aan ku talagalka ahayn iyadoo la eegayo cadaaladda guud maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad mudane gudoomiye garsoorayaal waxaan ka codsanaynaa in eedaas laga baabi'iyo qodobka ay ku soo eedeeyeen 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maadaama ay cadeysa waayeen maxkamaddana waxaan ka codsanaynaa in ay u wareejiyaan 445 maxkamaddana waa mahadsantahay shuura iyo wadatasha dheer kadib maxkamadda ayaa ku xukuntay Maxamed Cabdi Maxamuud dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta kala ah Ikraan Cumar Axmed iyo Farxiyo Xuseen Abuukar sida uu kaga dhawaaqay hoolkan gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida maxkamadda waxa uu cadaatay in eedeysane Maxamed Cabdi Maxamuud uu yahay dambiile gale dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah maxkamadda ayaana soo saari doonta xukun jideeyaha iyo habraacyada la xiriiro waa maasantiin maxkamadda waa xirantahay
cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho.